marka xigta ujeedadii halkan u maana waxa weeye geedi socodka dib u eegista dastuurka run ahaantii farxad aad weyn inoo tahay inaan maanta halkaani ku hirgelino oo ay suurta gashay aan ka soo qayb qaadanay ka soo qayb galay ururada bulshada ee kamid yihiin oqaasha waayeelada dhalinyarada iyo bahda haweenka mabda'a guud adduunyada maanta ay ku dhaqmayso waxay tahay in la xurmeeyo la xishmeeyo shuruucda hooyana shuruucda waxaa u ah dastuurka ayaa u ah dawlad kastaba waxay ku faantaa inay leedahay dastuur wanaagsan oo wax kastaba ku saabsan xiriirka ka dhaxeeyo dadweynaha iyo xiriirka dhaxeeyo dadweynaha iyo dawladooda iyo xiriirka dhaxeeyo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada arrimahaas dhan waa arrimo lagu cadeyn doono haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idmo waa dastuurka markii aan la maro dhammaan dawlad goboleedyada iyo maamulada jira ayaa waxaa la qaban doonaa insha Allah ta'ala shirweyne lagu diyaarinayo dib u eegidii markaas dastuurka la dhexgalaya qodob wixii u baahan in la toosiyo wax lagu daro wax laga bedelo yani sidiisi loo daayo 1969 dastuurkii markii la laaray oo militariga yimid waxa dhamaaday dastuur dadka haga waa la waayay foodada ugu badan meesha ka timid meeshaas ma aha waxa dadka hadda laga dhaacsiyo leeyahay qabiilada dagaalamay ma aha laakiin waxa dagaalamay waxa waaye dawlad wanaagii baa burburay oo dimuqraadiyada burburtay xuquuqda bini'aadamka lagu tuntay xuquuqda bini'aadamka markii lagu tuntayna qof walba markuu maxkamad ama dawlad ka waayay cadaalad wuxuu gadaal ugu noqday qabiilkiisa ugu noqday wax caadi ah taas marka inaan hadda soo celino waayo nidaam kala sarreyn sharci leh kala sarreyn sharcigana waxa ugu weyn waxa waaye dastuur waaye haddii dastuur la helina waxa waaye ummadu wax ma wada samaysan karto runtii hay'adda dastuurka waxa waaye hada ama contract ay bulshada wada galaan waa iyaga si wada noolaan lahaayeen iyaga iyo xukuumadda si wada noolaan lahaayeen maanta iyo shalay kulamadii socday ujeedadoodu waxay ahaaday in maaragtay dib u eegidda dastuurka tala midaysan laga yeesho siyaasad midaysan laga yeesho annaguna fikirkayna waan ku biirinay guud ahaan waxaan soo dhawaynaynaa in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo waxa kaloon maaragtay taladayna ku biirinaynaa qof kasta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay suuragal tahay in la gaarsiin karo in la gaarsiiyo